Asalaamu calaykum, soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadli doonaa online sidee wax looga bartaa. Muuqaalkan ayaan kugu sharxi doonaa. Haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar. Muuqaalkan ayaan gudgalaynaa. Online inaad wax ka bartid waa hab fiican oo laga heli karo aqoon ama la sii xoojisto xirfadaha. Halkan waxaan kugu sheegi doonaa dhowr hab oo aad ku baran karto waxyaabaha online lagu barto. Koorsooyinka online ah waxaa jira buug badan ay bixiyaan koorsooyin kala duwan oo bilaash ah ama lacag leh. Waxaa ka mid ah Coursera. Waxay bixisaa koorsooyin ka socda jaamacadaha caanka ah ee adduunka. Udemy waxa ay bixisaa koorsooyin bilaash ah oo ka socda jaamacadaha iyo machadyada ugu waaweyn ee adduunka. Udemy waa goob koorsooyin kala duwan oo lacag leh ama waqti qaarkood free ah. Khan Academy waxa ay bixisaa casharro bilaash ah oo loogu talagalay ardayda heer kasta ay marayaan. Waxaad wax ka baran kartaa YouTube-ka waa meel aad ka heli karto casharro video ah oo ku saabsan mowduucyo kala duwan. Waxaa jira kanaalo badan oo diiradda saaraya waxbarashada iyo tababarka xirfadaha kala duwan. Sida kale ee online wax ugu baran karto waa inaad codsataa courseska. Haddii aad rabto inaad barato xirfad gaar ah sida barnaamijka tiknoolajiyadda ama naqshadeynta, waxaa jira goobo badan ay ku siinayaan courses ama tababaro gaar ah. Tijaabi waxyaabaha qaarkood. Barashada online waxay noqon kartaa mid adag si aad si joogto ah ugu dhaqmin. Sidaas darteed, isku day inaad tijaabiso waxa aad baranayso si aad u hesho waayo-aragnimo dheeraad ah. Tusaale ahaan, inaad barato naqshadeynta, samee waxyaabo ku saabsan naqshadeynta si aad u barato sida loo sameeyo naqshadeynta. Faa'iidooyinka uu leeyahay online inaad wax ka barato: helitaanka khibrad badan, fududeynta waxbarashada, kala duwanaanshaha mowduucyada, qiimo jaban, xiriirka iyo fursadaha shabakadaha, xoojinta xirfadaha la xiriira tiknoolajiyadda. Waxaa jira faa'iidooyin badan ee online wax lagu barto. Online waxa aad ka heli kartaa casharro iyo koorsooyin ka socda macallimiin iyo khubaro adduunka oo dhan adigoo ka bixin gurigaaga. Barashada online waxay kuu saamaxaysaa inaad barato mowduucyo kala duwan oo aan xadidnayn sida tiknoolajiyadda, suuqgeynta, caafimaadka, cilmiga beeraha iyo in ka badan. Barashada online waxay kaa caawinaysaa inaad barato xirfad cusub oo la xiriirta adeegsiga tiknoolajiyadda, taasoo muhiim u ah mustaqbalkaaga shaqo. Markii la soo koobo, waxbarashada online waxa ay bixisaa fursado badan oo xagga tayada iyo helitaanka aqoon cusub.